السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا غلطة أنا غلط أطان وعكارة وأنا سكر سيدي كسر تجيني من الاستوديو هاي المجالات الكتيرة. وركن لوها عاوز نسوي ثاني وعكر خمسة من إبراهيم. وفتي بلارن أو هرك عيون مدحوينها الدولة الدجان كصومالي ذا يأكل بيتمي تلوين كترسن دجموين كتشجع أو برا يجورسم. ففاينت وركاسنا وحيني هيا وري علي برخات. wafti ballaaran oo horkacayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa u kicitay tuulooyin ka tirsan degmooyinka Jigjiga oo bareeya Gursum madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Cumar oo ay socdaalkiisan ku wehelinayeen madaxa xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Rashiid Cabdi Guuleed iyo gudoomiyaha gobolka Jigjiga mudane Mawlid Hay ayaa waxay ujeedada safarkani u ahaa mashaariic horumarineed oo xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida ka dhisay tuulooyinkaasi saddexda degmo ka tirsan oo madaxweynuhu xariga ka soo jaray maalintii shalay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa xariga ka soo jaray xarumo caafimaad oo cusub dhismahooduna u fuliyay xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida kuwaas oo laga dhisay tuulooyinka Jaare Bambaas Dhagaxle Koojaarta Dhexe oo intuba ka tirsan degmada Awbarre iyo degmada Gursum iyo Jigjiga kuwaas oo dhammaanba qalabkii loo dhammaystiray adeeg bixintiina ay bilaabeen una fidinayaan bulshada adeeg caafimaad marka laga reebo health centerka ama xarunta caafimaad ee Koojaarta Dhexe oo isaga dhismihiisa la dhammaystiray qalabayntiisina hadda la wada dhawaana adeeg caafimaad oo hufan u fidin doona bulshada tuuladaasi Koojaarta Dhexe warku wuxuu intaas ku daraya in mashaariicahan ay dabagalkooda ay lahaayeen maamulka gobolka Jigjiga ugu dambeyntiina madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo wafdigiisani ballaaran ee sida heer sare ah loo soo dhaweeyay isla markaasina ay dadweynaha ku dhaqan degmooyinkaasi iyo tuulooyinkaasi laga dhisay mashaariicaha ay ku soo dhaweynayeen caleemo qoyan iyo kood taagan jidadka hareerihiisa shacabkuna degmada Awbarre iyo Gursum gaar ahaan tuulooyinkaasi ugu soo dhaweeyeen madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo shacabkaasi la hadlayay oo weydiinayay waxyaabaha ay baahidoodu tahay waxayna shacabka tuulooyinkaasi ku dhaqan ka codsadeen madaxweynaha iyo wafdigani ballaaran in iskuulada ka jira tuulooyinkaasi saddexdaasi degmo ee ay carruurtoodu wax ka bartaan loo sii xoojiyo sidoo kalena loo qodo ceelal ay biyaha ka cabaan oo dheeri ah waxa kale oo ay shacabkaasi codsigooda ka mid ahaa in cagafta beeraha qodal loo sii kordhiyo waa tahay daawadeel inta waxay noogu dhawr wixii deegaanka aan idinka haynay wayna mahadsantahay Fatxe Maxamuud oo warkan ila socodsiinaysay daawadayaal waxaan idin soo deenaynaa habeen dambe barnaamij aan idinka soo diyaarinay socdaalkii madaxweynuhu ku maray gobolka Jigjiga tan iyo mar labaad in hawada ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa anigoo ah Ubax Cabdi Casiis badbaado Allah